سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kulanti wacan wanaagsan idil ahaantiin kusoo dhawaada walaalayaal koroskeenii html. insha allahu tacaala maanta waxaynu qaadanaynaa casharkii lixaad ee koroskan oo aanu si taxanaa uga soo gelino bartaanu youtube-ka ku leenahay ee camel training. waayahay casharkeena waxaynu ku baran doonaa taagis loo yaqaano fonty formatting qeexitaankeeda haddii aan wada eegno. wuxuu yidhi if you wanted to decorate your tags of HTML, use these instructions like underline, utilizing and etc. haddii aad rabto inaad fartaada qurxiso marka aad HTML-ka joogto waa inaad isticmaashaa amaradan underlining, utilizing iyo kuwo kaloo la mid ah. waayahay waxaynu bal ugu horreysiinaynaa labada taag ee ah strongi iyo bolding. labada taag balba ayaynu eegaynaa. page-keeni baynu ku noqonaynaa hore aynu kusoo sameynay casharkeenii shanaad. kalarku casaan buu ahaa, waynu ka bedelaynaa, waxaan dhahaynaa blue. sidoo kale fartana waynu ka bedelaynaa, far caadiyaaba iska qaato, amarkaa waynu ka dhex saaraynaa control s. taagii bolding oo ah in la dhumuc weyneeyo qoraalka qayb inta aad ka rabto. waxaa suuragala islamarkaana aad awood u leedahay inaad dhumuc yeesho qayb ka mid a qoraalkaaga si loo arko, yacni meelaha muhiimka oo kale ayaad u isticmaali kartaa. iminka gabaygan oo kale, nin daaqsanayana maxaan daafiga u kariyey. waaye halkaa daafiyo ay ku qoran tahay ayaynu hortiisa ka furaynaa taag, dabadiisana aynu kasoo xidhaynaa. waa intaynu u dan leenahay inay muuqato keliya. waayahay taagga waxaa loo yaqaanaa b, waa bida caadiga ee b for book. halkan baan kasoo xidhaya taagga b, waka control s. bal eegno isbedelka. markii hore qoraalkeenanu casaan buu ahaa, waxaynu kasoo dhignay midab buluuga. sidoo kale fartan nooceediina waynu ka qaadnay amarkaa, farti buluug ayay noqotay, laakiin amarkaasi hadda may inama khuseeyo, hore ayaynu usoo qaadanay. ee wuxun bay ahayd bolding, inaynu farteena qayb madoobayno halkii daafiyow ahayd. waad ujeedaan inay ka duwan tahay qoraaladan kale oo ay ka yara awood badan tahay, oo yacni dhumuc ahaan. amar kale ayaynu samayn doonaa oo loo yaqaano strong. isaguna kan ayuu kusoo dhadhow yahay, waa amar lagu qurxiyo isna farta. halka ay ku qoran tahay dulqaad ayaan isna ka furayaa amar loo yaqaano strong. amarka strongi ayaan halkaa ka furaynaa. waxaynu kasoo xidhaynaa halka aynu u dan leenahay inuu amarkaasuun ku dhaco. dulqaad oo keliya baynu u dan leenahay, dabadiisa ayaynu kasoo xidhaynaa. waka amarkii waynu soo xidhnay control s. bal haynu eegno isbedelka uu qaato. waa kan isna waxa uu la mid yahay oo uu qaatay amarka bolding iyo strong. waa isku mid, waxaa ma kala dheeraa, oo yacni labadooduba fartun bay madoobeynayaan. waayahay taagga xiga aynu qaadan doonaa waxa weeye italize, inaynu fartii jiifino. yacni wordka waad ku aragtay markaad wax ku qoraysaan oo kale, aynu farta jiifin kartid oo italize aad ku samayn karto. halkan baynu isna imanaynaa xigtee ah dubaaqiisa. intaas bal ayaynu iyana amar ku sameynaynaa italize. italize waxaa laysoga soo gaabsadaa
id ayaynu halkaa dambe kasoo xidhaynaa. oka control s waxaynu bal fiirina amarkana. oka dubaaqiisa waad u jeedaan inuu ka duwan yahay farta inteeda kale oo uu jiifo isla markaana uu ka yara fiiqfiiqan yahay. waayay kaasina waa amarkii saddexaad. amarka kale aynu qaadan doonaana waxa uu noqonayaa underline, in fartii hoosta laga xariiqo. yani tanoo kale waxay kusoo baxaysaa ciwaanada. waayahay deexashiya muuso, bal intaa ayaan rabnaa inaynu iyadana underline ku sameyno. taagaynu furaynaa, u baynu qoraynaa. isaga laftarkiisa u baad sooga soo gaabsan kartaa oo u baa ku filan inaad qorto. halkaasaynu kasoo xidhaynaa taagii u. control s aan refresh garayno. waa halkan intayna u dan leenahay deexashiyo ka underline, inuu hoostii ka xariiqan yahay oo qoraalka kale ka duwan yahay waan aragnaa. amarkaana saas ayaad u adeegsanaysaa. waa amarkii afraad. amarka xigaa waxa weeye amar loo yaqaano big. farti yani inaad xoogaa yara dhaadheerayso, dhumucdeedana iyadoo aan u ekaanayn taagagii aynu soo aragnay b iyo strongi ay ka duwan tahay, laakiin amarkani isna la adeegsado. waay isagana waxaynu amarkan siin doonaa qoraalka dhuunta dacalkeeda ayaynu balesna amarkaa big siinaynaa. halkan baynu ka furaynaa big. waxaan soo xiraynaa taagii big. markastoo aad taag soo xidhayso calaamadda slashta ha ilaawin. markastoo aad isbedel samaysana control s dheh. markaad browserka tagtana refresh garee. dhuunta dacalkeeda oo qoraalkaynu wax ka bedelnay, bal haynu eegno isbedelka uu qaato. isaga oo aan qaadan isbedelkii boldinka oo kale ayaa haddana fartan waa uu ka duwan yahay dhumuc ahaan iyo dherer ahaan. isaguna waa taag loo isticmaalo formatting fontiga marka la joogo html. shantaa amar ayaynu maanta casharkeena 6aad kusoo afmeeraynaa. casharaantana si uu qof kastaaba u fahmo isla markaana ay u fududaato in laabkeeda la sameeyo, waa aan gaagaabinaynaa. si xeel dheerna cashar kasta waan u sharaxaynaa insha allahu tacaala. halkaas ay nagu joogaysaa maanta. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.